Waqtigu waa saman uu Alle inoogu nimceeyey, waana wax si dhaqsiyo ah u ordaya oo si degdeg ah inagu dhaafaya, oo cid bini'aadam ahi uusan joojin karin, qof walbana laga siiyey in cayiman oo xadaysan. Qof hore u jiray, mid hadda jooga, iyo mid imaan doonaba, intuba waa kuwo aan waarahayn oo wada tegi doona. Qof kastaa siduu maalin u dhasho ayuunbuu haddana maalin u dhintaa. Sidoo kale dunidu waa mid uu waqtigu rogrogayo. In badan waxaan maqalnaa in dadkii hore ay seexan jireen buuraha hoostooda, kuwii ku xigayna ay godad qodan jireen, kuwii ku xigayna ay dhisan jireen guryo geedad ka samaysan, ilaa maantoo dhismaha dabaqyada ah laysugu faanayo, heeray ka gaadhaba in waddamada qaar ay maalintii iyo habeenkii isugu mid noqdaan. Waqtigu waa nolosha, noloshuna waa waqtiga. Diinteenna Islaamku waxay ahmiyad weyn siisay qiimaha waqtiga. Tusaale ahaan, qofkii 5 salaadood ilaaliya wuxuu ilaaliyey miisaanka maalintiisa. Qofkii ilaaliya salaada Jumcaha wuxuu ilaaliyey miisaanka usbuuca oo dhan. Qofkii ilaaliya soonka bisha Ramadaan wuxuu ilaaliyey miisaanka sanadka oo dhan. Qofkii xajiyana wuxuu kaamil yeelay miisaanka noloshiisa oo dhan. Bal eeg haddaba sida wanaagsan uu Islaamku ahmiyadda u siiyey qiimaha waqtiga. Labada shay ee ugu muhiimsan nolosheenna ee aan haysano waa firaaqada iyo caafimaadka, waana hantida dhabta ah ee qofkii haystaa uu ku faani karayo. Waxaa muhiim ah inaan ka faa'iidaysano waqtigeenna. Ruuxii ka faa'iidaystaa wuxuu mahadin doonaa xilliga ay dadka aan ka faa'iidaysan waqtigooda shallaayayaan. Waa kastoo dilaaca waa maalin cusub oo ku leh ibnu aadanow, waxaan ahay maalin cusub, waxaana kuu sidaa waqti cusub. Waxaad maanta igu beertay ayaad berrina iga guran doontaa. Waxaan kuu ahay qasnad aan soo laabanayn, waxaad ii dhiibto ayuunbaan kaa abaal marin doonaa. Tiin iyo timirkay ahaataba, maalin kastoo dhammaato waxay la micno tahay ama ay la mid tahay jidhkaaga oo qayb laga jaray. Markastoo jidhkaaga qayb laga jarona waxaa sii daciifaya awoodda. Sidaa darteed waa inaan waqtigeenna ilaalino oo aan aad uga faa'iidaysano. Ruuxii ka faa'iidaystaa faa'iidadiisa ayuunbuu dhaxli, kii aan ka faa'iidaysana faa'iido darradiisa ayuunbuu dhaxli doonaa oo ka heli doonaa.